تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، maanta runtii waa maalin aad u weyn. waa maalin islaamka oo dhan ay guteen waajibkii ilaahay uu ku waajib yeelay oo ramadaanka ahaa oo ruknigii arkaanta islaamka ka mid ahaa ah. ummadda islaamka ahi ay ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisii gudatay. marka meel kastay joogaan waxaan ugu hambalyaynaynaa ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, haddana ummadda Galmudug ciidda soo qaabishay ee u timid ee farxadda leh ayaan la wadaagaynaa in aan ugu tahniyadayno, ugu hambalyayno. waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo ramadaankii rukniga islaamka ahaa oo aan soo gudannay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo. inta la xoraynahayo maalintan faraxa badanna ilaahay ha nagu daro. waxaad ogtihiin bil khayr badan bay ahayd oo ilaahay raxmaddiisu furan tahay, oo 10ka hore waxaa la yidhaahdaa waa raxmad, 10ka dhexena waa dembi dhaaf, 10ka ugu dambeeyana waxa weeye naartaa laga xoreeyaa ummad badan oo ka mid a ummatul muxamadiyada. marka waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala qolada 10ka hore loogu naxariistay, 10ka dhexena loogu dembi dhaafay, 10ka dambena lagu xoreeyey, ee gudanaya farax arrintaa ay ku faraxsan yihiin oo ilaahay waafajiyey. muwaafaqadaas rabbaaniga ah ilaahay kuwa waafajiyo inuu naga dhigaan ilaahay ka baryaynaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa dhibka jira oo adduunyadii oo dhan haysta iyo ciriiriga haysta in ilaahay ka qaado oo ilaahay fudayd ugu bedelo oo cudurka caafimaad ku bedelo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay inuu namakaniyo tadarruciisa aan asaga u khushuucno oo daacadiisa gudanno, awaamirtiisa qaadanno, nawaahida uu naga reebana aan ka dheeraanno. tadarrucaas ka bacdina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga faydo wax alla wixii dhib ah oo haysta dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan. taas ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. maalintaa ciidda ah waxyaabaha shareecadeenna islaamku ay aad iyo aad u ammaantay waxaa ka mid ah in la farax geliyo oo laga farxiyo dadka masaakiinta ah, dadka fuqarada ah oon waxba haysan, in ay ka farxiyaan kuwa wax haystaa. waxa aad haysato waa imtixaan lagugu imtixaanayo. haddii lagu diido aan lagu siino faqiir lagaa dhigana faqrigu waa imtixaan. marka kan wax haystaana waa imtixaanaya, midka aan waxba haysanna waa imtixaanaya. in imtixaanka kuwa ku baasa oo ku guulaysta ilaahay naga dhigana ilaahay waa ka baryaynaa. marka kan wax haystaa ha farax geliyo, ha ka farxiyo sida awlaadiisa iyo ahalkiisa uu farax gelinayo. ummadda kaleeto masaakiinta iyo fuqarada ana ha farax geliyo. farax gelintaas darteed yaa ilaahay wuxuu waajib nooga dhigay
zakada la yidhaha zakaatul fidriga zakadaas waqtiga ay waajibaysaa waxaaba weeyaba waqtiga ay dhalato bisha shawaal la yidhaahdo ramadaan dhammaado ayay waajibaysaa marka faraxaas ayay ka qayb qaadanaysaahoo intii aan waxba haysanin waa farxayaano waxaa soo gelahaya inta waxaysatay markii ay wax sii lahaayeen oo ay faraxa wada wadaagi lahaayeen oo ay damaashaadi lahaayeen dulqaadkay soo sameeyeen oo ilaahay daacadiisii ay guteen ay isugu tahniyadayn lahaayeen marka waxaan leenahay dadka masaakiintaana ha laga farxiyo oo ha la farax geliyo oo ha loogu tago guryahooda ha la soo bixiyo oo ha lagu farax geliyo inay la wadaagaan kuwa farxayo xoolaha haysta inay faraxa la wadaagaan agoomaha waa sidoo kaleeto dadka masaakiinta ayay ka mid yihiin waa la farax geliyaa oo waa laga farxiyaa fadiilo gaara bay sii leeyihiin weliba agoontu waxaa ka mid ah dadka la farax gelinayo dadka waaweyn ee sheebabka ah duqowshaha ah oo ayakuna fuqarada ah ayakana waa la farax geliyaaho waa laga farxiyaa inta aan waxba haysan waxay u sii kala daran yihiin sida baahidoodu u kala darantay u sii kala daran yihiin marka maalmaha faraxa in aad isku daydaa lagaa rabaa haddii ilaahay wax kuu dhiibay in badan oo ka mida muslimiinta inay kula wadaagaan farax waxaa la wadaagaa tahniyadda waxaa la wadaagaa salaamta waxaa la wadaagaa faraxgelinta waxaa la wadaagaa cafiska maadaama maalin cafisa ay tahay iyadoo u dambayda maalmihii cafiska oo aad iyo aad ilaahay u tilmaamay waa inaad adiguna iska cafiso ummadda muslimiinta ah intii adiga wax kaa gashay inaad iska cafiso oo ilaahay aad ka hodansato waxa alla wixii dhibahoo adiga ku gaaray ama maalanba aad isleedahay waxa weeye waxaad dadkii gaarsiida makhluuqaadkii noocyadiisii kala gadisnaayaa jira inaad iska cafiso si adigana lagu cafiyo oo wixii dhibahoo adigu aad geysatay lagu dhaafo waayo aljazaa'u min jinsi alcamal kamaa tadiinu tudaan wa kamaa tacmal tujzaa baa layidhi marka sidii aad camal fashaa lagugu jaazaynaya adigana marka waxaan leenahay bishaan barakaysan oo noo dhammaatay hambalyo ayaan leenahay muslimiintoo dhan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan haddana galmudug waxaan kaloo ku boorinayaa galmudug inay isku tashi sameeyaan oo ammaankooda ay ku dadaalaan waxa ugu horeeya oo la ilaaliyo waa ammaanka waa in la iska kaashado oo qof walbaahiba oo iska xil saaro adduunka hadda waxa dhibka u geystay waa argagixisada marka ha loo midoobo argagixisada in la iska ilaaliyo la iska difaaco la iska laga hortago makrigooda iyo balaayadooda maadaama ay yihiin ummad ka soo horjeeda islaamnimada magacii islaamkana ku qaraabanaysa waa in si wada jir ah looga soo wada jeestaa dhammaan ummadda noocyadooda kala gadisan meel kastay joogaan mid yar iyo mid weyn inay isku meel uga soo jeestaan amnigu waxaa la yidhaahdaa waa gogosha haddii qofku gogol waayana ma seexdo hadduu amni waayo ma seexdo marka amnigu waa gogoshaas in la wada ilaaliyo oo dhammaan loo wada istaago sidii aad weligiin ugu taagnaan jirteen taasna aad iyo aadaan idinku boorinayaa waxaan leenahay hambalyo dhammaantiin jazaakumullahu khayral jazaa ramadaankii waxaan leenahay aan soo gudanay ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuulkiisa hana siiyo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu